Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin Cabdicasiis Saciid nabadgelyo korkiina alla hayaalo. Walaal marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto channelka, sidoo kale ha hilmaamin inaad gambaleelka riixdo si ay kuu soo gaaraan wax walba aan aniga soo geliyo. Maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay salaada, in la dugto iyo in laga tago, maxaa farqiga u dhexeeya. Rasuulka Ilaahay wuxuu leeyahay awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaamati as-salaatu, فإن صلحت صلح العمل صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. addoonka maalinta qiyaamo waxyaabaha ugu horeeya oo la weydiinayo oo laga xisaabinayo waa salaada, ayuu leeyahay rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu caleyh. Salaadaasi haddii ay hagaagto, camalkiisa inta kalena wuu hagaagayaa, minuu soon, zako, xaj iyo waxyaabo kale, sadaqo haddii ay ahaaleed waa hagaagayaan. laakiin haddii ay salaadii halaawdo, wax u hagaagaya haba yaraatee ma jirto, oo wax walba way halaabayaan. Salaada haddii aad ku dadaasho oo iyada laga aqbalo, inta kalena waa laga aqbalay. Salaada oo lagu dadaalaana faa'iidooyin badan ayaaba laga helaa, taasoo ka mid ah in Ilaahay jannada kugu geliyo. Marka aan ku dadaalno salaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga aad ayaan idin jeclahay, gaarsii walaalahaaga kale.